aadayu mahadsan yahay waryahaga maxamed xuseen oo warbixintaasi faahinayay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba in dalka Imaaraadka Carabtu uu duulaan qaawan ku soo qaaday dowladda Soomaaliya waxaana Imaaraadka Carabtu tababaro dhinaca militariga ciidamada xoogga ee Soomaaliya siyaasiyiinta qaba in Imaaraadku dalka Soomaaliya uu duulaan ku soo qaaday waxa kamid ah gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya Farax Macalin oo barta Twitter-ka uu ku leeyahay ku soo qoray in dowladda Soomaaliya ay erido safiirka Imaaraadka u jooga Muqdisho haddii cadeymaha lagu helo dhacdadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho Farax Macalin ayaa sheegay inay caqabad Carabtu ku tahay dowladnimada Soomaaliya haddaba warbixintan gaarka ah ayaan ku eegaynaa Imaaraadka Carabta 30 sano ka hor waxa uu si dhow u rajayn jiray deeq gargaar ah oo ka soo gaadha Soomaaliya 27 sano kadib isaga ayaa ka mid noqday kuwa caawiya Soomaaliya dhinacyada militariga ayuu galaangal ku yeeshay ciidamo ayuu ka qortay Muqdisho iyo Puntland Jubbaland ayuu iyana ka taageeray qalab militari xeeldeerayaasha militariga ee Soomaalida ayaa sheegay in tani tahay mid Imaaraadka Carabtu uu ku curiyaaminayo dhismaha ciidamada Soomaaliya laakiin dhag jaraq looma siinin Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa aaminsan in waqtigan Soomaalidu ku baraarugtay hagardaamada wadamada Carabta Soomaalida marka arrinteeda wadamadii aantii sanadkan soo gaaray wadamada Carabta marka waxay ku qanciyeen Soomaalida inay space u sheeka baxaan dagaalkan ay ku taageeri doonaan ayagoo marka ugu dan leh in Soomaaliya dagaal xun ay geliyaan oo marka Soomaaliya xirigaas xilli dowlad adag bay ahayd oo macnaha hadii Soomaaliya saas ku socoto oo nidaamkan dowliga hadii ku socdaan ay ku socoto amniga haystaan ay ku socdaan dowlad xoog badan ay noqonaysaa oo marka khayraadkeeda u deertay in la soo baxdo marka ma doonayaan maadaama Soomaaliya istaraatiiji ku taalo ma doonayaan in khayraad Soomaaliya la soo baxdo ma doonaynin in dekedaha Soomaaliya ay shaqeeyaan ma doonaynin inay Soomaaliya dowlad xoog badan noqoto ma doonaynin marka waxay dabada u riixaan marka dagaal inay geliyaan ay marka anaga la jirayna anaga hil hoob fidinayna dagaal bulshada ka qorshaha baa bedelina Soomaaliya dagaalka way gashay Carabta kale way kala baxday Imaaraadku waxa uu xoogga saaray inuu gacanta ku dhigo kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya wuxuu heshiisyo la galay Puntland iyo Somaliland oo uu la wareegay maamulada dekedaha Berbera iyo Boosaaso oo qandaraasyo heshiisyadaasi ay 30 sano gaarayaan waxa kale oo heshiisyadaasi ku cad in uu la gali karo heshiis kale dawladda uu arko inay kordhin karaan wax soo saarka iyo kobaca dhaqaale ee dekedaha uu la wareegay boqolkiiba 19 ayuu Imaaraadku ku wareejiyay dekada magaalada Berbera dawladda Ethiopia gudoomiye ku-xigeenkii hore ee dalka Kenya Farax Macalin oo arrimaha Soomaaliya aad uga hadla ayaa qaba in tani ay tahay mid Imaaraadka iyo wadamada Carabtu ay ka xun yihiin iftiinka dawladnimo ee Soomaaliya u soo baxay waxa weeyaan in jaajuus oo khaa'inul wadan oo wadan kale oo ajnabi u adeegayo oo laakiin haddana khaa'in wadanimadiisa la taagan oo dadkiisa asagoo il adeeg taagan oo oranaya meesha ma waxan marinayna wada gartay Soomaaliya waa lagu soo duulay wax maanta lagu soo duulayna ma Soomaaliya waxa lagu soo duulay 74 ka bilaabat dagaalka 77 haatee macluumaadka sirtoon ogaano aniga hadda kooraan inta kaga hadlay waxa kamid ahayd gelista la gelinay Soomaaliya haatee dagaalka ku talagal wadama khaliijka iyo Iran oo markaas iyadana ku dhex jirtay iyo wax kasto iyagana mabaadi ahaanna ku kala duwan laakiin khatarta ay u arkaan Soomaaliya oo shidaalkeeda soo baxay oo dekadaheedii la kiciyay oo la dhisay oo nolosheedii la isku dubariday khatarta ay ka soo gelinayso iyaga noloshoodii ayay waxay ku heshiiyeen xukunkii ka taagnaa marka Ciraaq oo bacthista ah waa Arab nationalism bacthista oo maartay Saddam Hussein oo kamid ah khaliijkii oo boqortooyay oo Sacuudigii iyo Imaaraadkii wax la mid ka ahaa Iran oo marka Pahlaviga iyagana ay boqortooyay haysteen dadkaas oo dhan oo iyagana dhibaatooyin khaas u dhaxayso ayaa haddana waxay istuseen haday Soomaaliya shidaalkeeda la soo saaro anaga Persian Gulf khaliijul Faris mise khaliijul Arab ninba soo yaqaan waxa weeyaan suuqana uu xirmaya markaas Soomaaliya la yiraahdo waa uu garab taagan yahay dagaalgal Ruushka oo garab u ahaana laga saaray laba dhaxda marka Mareykankana dad bay ku lahaayeen lobby group iyo system bay ku lahaayeen Soomaalida intana waa laga soo saaray maxaa oil companies baa jiray bariga laba dhaxda la soo dhigay dagaalka markay gasheen laba dhinac looga baxay colaadii baa wali socotaa
allaala waxaa nagu dhacaya oo dhan dowladahan afrikaankan oo maaragtay kuwan jiraanka waa iyagana waa iska maxay ahayd qawsaar lagu adeeganaya weeyaan in looda la raacsado geel la raacsado oo maaragtay markuu soo hido asagana ameel caane la siiyo oo wax weyn aan loo hayno camal weeyaan waa la dhaqaaleeyaa si waa loo yar dhaqaaleeyaa kuwan jiraanka laakiin dhabta colaadda Soomaaliyeed waxay ka socotaa khaliijka wayna la soo shacbixeen hadda oo hataa gabashadii iyo xigmadii ma jirto waa mid uu ninka mukhaabaraadka Sacuudiga ugu weyn uu yiri Ethiopia hal la wareegta Soomaaliya soo ka hadlay meel oo yahuudana la hadlayo يعني معناها هذا وحكي تسيسا وحي الصومالي يكون داشي أو دم كنتن كسنة مسلحين كسنة صورة في تاريخ أنا ضد به وعرب بينهم هاي إسلام بينهم إسلام هاي واحد بين إسلام لا يقول هي نسوح بكثير ومارتي أنو إسلام بان هاي صومالي بان هاي لكن واحد قلنا لو دقي أمارات لكن ما دام أي حد أي أنا إلا عشان يتوصل هرتد أي كان لتري أنا مرنا بالآمنين قدامها خليجك وادي فهمتي الصومال لكن وحاب محل ما انت إني بناك للتاجيين ننكم معمل قبلات كأ أو الصقو قبل قصة عادي أنتو كتجا ودن كيسي ودن كلا تجاهي يربارك أنت الوحرة بحكم الله صاروا أفر بركض من تيرك اللي صار يحب به بدون كون بواسة والتريزم وادي كرتي الصومال لكن شري صحراء والصقا ما سلقولي عناهي بس الوليدي محي هذه برابرت عناي لا عرضت سعودي جت اشتغل كنت إلهي سنين هذيك مركز اشتغل هذا الحرة وحكى استلقى حرة لأن أنا كون حريصين إلى أن كعب سنين قلنا إيه عن تعقشه كذا لا heshiiska milatari ee Berbera iyo la wareegitaanka dawladda Imaaraadka Carabta ee dekedaha Soomaaliya qaybtood ayaa Soomaali badan ay u arkaan gumaysi dadban iyo dawlad siyaasadeed oo Imaaraadku ku soo qaaday Soomaaliya waxayse wax walba cadaadeen oo soo shacbixeen faragelinta Imaaraadka ee Soomaaliya kadib khilaafkii khaliijka oo Imaaraadku si cad u muujiyay inuusan ka gabanaynin danihiisa Soomaaliya dhowr jeer ayuu Dubai shirar ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo kala hadlay danihiisa Soomaaliya safiirkii Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya ayaa dawladda Soomaaliya wasaaraddeeda amuuraha dibadda ay ugu yeedhay Muqdisho inuu yimaado isagoo ka dhaga adeegay taas ayaana waxa ay marada ka rogtay tuhmo la qabo Muqdisho waxa ciidamo uu tababaray Imaaraadka Carabtu oo ka tirsan ciidamada xoogga ay weerareen hoyga uu Muqdisho ka degan yahay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka xuntahay falkaasi walow baaritaano ay socdaan xildhibaano iyo madax ka tirsan maamul goboleedyada ayaa maalmahan iyana ku shirsanaa Dubai iyo siyaasiyiin xilal sare ka soo qabtay Soomaaliya cara ayaa laga muujiyay falkaasi iyo Imaaraadka Carabtu mu'aamarada uu ka wada Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin oo si weyn ugu fogaan arrimaha Soomaaliya أنا لقب موقف كيس إنه سعد وشجو أي شيء إن إماراتك يا عربته أي عريامين يان دقالها سوماليا هي الدولة ده أردن كايا سوماليا بقي ستويتر كايو كسو قري أتسي وشيدي مدحوينها سوماليا هي رئيس الوزراء يسقو الشيء إن وحي كدع أي مقدش شلي هدي عضيم رسمي الله هلو دولة سوماليا أي إريدو سفير كإمارات كوتشوغا مقدشو إسلامركانا أي كيف جناتو تبعها أي أملاقيان ودمضى عربيد كدب خلاف كي خليج كا دولتها عربتا أي سوين قلان قلوية شي سوماليا وحين أكلا برتميان دانو هودا سوماليا أي كليهين قيبتو وحي الشيغان إن دور بقل مليون دولار أي كوب حنيان مالقاش سوماليا لكن حليرياش سومالي دا ayaa qaba intaas ay tahay gumaysi horle oo carabtu ay ku soo qaaday Soomaaliya dad badan oo aqoon-yahano ayaa qaba inaysan carabtu raali ka hayn in Soomaaliya ay degto lana soo baxdo kheyraadkeeda maadaama ay ku taalo meel istiraatiiji ah oo dunidu ay isha ku hayso